haddaba istuudiyaha waxaa nala fadhiya waryahayaga cabdi axmed oo isagoo si hoose ula socda dooda maxkamadda ka socota ee u dhaxaysa axsaabta NASA iyo Jubilee waxayna ku saabsan tahay natiijooyinka doorashadii dhawaan ee ku guuleystay Uhuru Kenyatta. cabdi axmed soo dhawaaw. looyaro waaweyn ayaa meesha la isku adeegsaday, tartankuna waa u socdaa, weliba waxaad moodaa xataa sabtidii axadii oo fasax dalkanka in habeenadii xilli dambe la gaaray. horta mahadsanid Fuad. dabcan horta waxaa mudan in la xuso David Maraga wuxuu ka socdaa madhabka maaragtay Seventh Day Adventist Church, marka inta badan madhabkaas sabti ma shaqeeyaan. liana taas ayaa sabab u noqotay qaar ka mid ah maaragtay arrimaha muhiimka ah in jumcihii habeenimo la go'aamiyo. laakiin si walba ha ahaato Fuad, waxaa weeyaan kiiskan xiise weyn ayaa maaragtay ay soo jiitay oo waxaad moodaa waqtiga loogu talagalena horta waxaa weeye jumcaha soo socoto siduu dastuurka dhigayo waa in maxkamadda ay go'aan ka gaadho. marka taas ayaa waxa ka soo horeysay waxyaalo badan oo maaragtay technicalities ama waxyaalo aan ku tilmaami karo yacni farsamo sharciyadeed in wixii maaragtay dood ay wataan NASA ay soo gudbiyaan, IEBC ay soo gudbiyaan waxoodii la isla fiiriyo, qolada Jubileena maaragtay ay ka jawaabaan. marka wixiiba waxoogaa waqtina way soo qaateen. marka muhiimadda ayaa waxay tahay hadartan kulay fadhigan wuu socdaa, dabcan kulay waqti dambena wuu gaari doonaa, waayo waqtigana sibuu u yaryahay, arrimahana waa arrimo maaragtay badan. Justice Maraga waxaa inta badan hadartan lagu tilmaamay ee khuurada maaragtay sharciga ay ku tilmaamayeen inuu yahay qof maaragtay tixraacayo ama the seven judge benchka idil inay tixraacayeen waxyaalaha technicalitiska ah oo farsamada ah oo maraga ku saabsan iyo cadaaladda. taasi waxay ka dambeysay markii maaragtay lagu yiri xulafada NASA waan qaadanaynaa, maxkamadda way qaadanaysaa waxyaalihii aad soo gudbiseen inkastoo aad ka dib dhacdeen waqtigii la idinkugu talagalay ama uu sharciga idinkugu talagalay, laakiin maxkamadda waxay awood bay u leedahay in arrimahaas ay go'aan ka gaadho. waa maasanta cabdi axmed. saan ogsoonahay muranka inta badan arrinta natiijooyinka IEBC ay ku dhawaaqdo guddiga doorashooyinka ayaa la isugu haystaa. waxaana dooda inta badan dacwoonaya waa xisbiga NASA oo isagu lagu guuleystay sida guddiga doorashada ay sheegeen. maxay tahay waxa ay ku andacoynayaan guddiga doorashada NASA oo ay leeyihiin doorashadii madaxtinimada hogaamiyihii Raila Odinga waa la dhacay? maxay waxyaalaha ugu waaweyn ay ku andacoonayaan maxay tahay? horta Fuad, tan iyo intaysan weli maxkamadda aadin ayaa Raila Odinga dhowr jeer ayaa ka soo go'day ama laga soo xigsaday inuu yiri weligeedba ma dhicin doorasho oo saan wax loo shubtay taariikhda waddankan Kenya. marka bimacnaa ayagu waxay shaki ka qabaan ama waxay dood ka qabaan yacni dhammaanba sida maaragtay IEBC hawsha u qabatay. marka Justice Maraga subaxan markii ay go'aaminayeen ama ay go'aaminayeen wixii codsi la soo hordhigay ayaa waxay ogolaadeen xulafada NASA in ay fiirsadaan ama in ay u helaan maaragtay meel u gala ay maaragtay ay ka fiirsadaan serverska ama computer systemka maaragtay IEBC, laakiin wuxuu kaliya ku xakameeyay inay akhriyaan macluumaadka xambaarsan. dabcan keligood ma ahaan doonaan, waxaa maxkamadda dad bay maaragtay u xil saari doontaa dhinacyaha kulli maaragtay oo doodan isku haysto goobjoog bay ka noqon doonaan. dadka qaar falanqeynaya arrimahan waxay leeyihiin looyaradii ugu waaweynaa dalka la isku adeegsaday dhinaca Jubilee markaad aragto Fred Ngatia iyo Axmed Nasir Abdullahi oo shakhsiga kaliya oo looyarada dalkan hadda ugu cadcad ku jira. dhinacan kale Paul Muite ayaa guddiga doorashooyinka ka socda. James Orengo nin aad loo ixtiraamay isaguna dhinaca NASA. ma isleedahay doodu way adkaanaysaa inay Maraga go'aanka ugu dambeeyay inuu ka gaaray iyo 60 nin kale maaragtay qaadiyaasha guud ee dalka maxkamadda sare way ku adkaan kartaa? horta Fuad, waxaad soo tilmaantay waxay ka turjumaysaa culayska kiiskan culaysku xambaarsan yahay, waayo ayatiin idil oo qaran ayaa kiiskan fiirsanaya. soo gartama marka khubradan iskugu yimid oo labada dhinac ama saddexda dhinac ka socdo rag culus weeyaan
oo xagga maaragtay sharciga qof walba qofka kale u yaqaana oo qofka wuxuu yaqaana sidii qof loo gaadi lahaa iyo meesha maaragtay laga booleysan lahaa iyo xaalaa soo idin laakiin waxoogaa way fiican tahay siduu maraga u yiri inaan waxoogaa ka yara xishoono inaan ka sheekayno kiiska siduu noqon doono laakiin dabcan waa arrin aad iyo aad culus oo hortaalo maxkamadda sare bal natiijada un baan sugaynaa aad iyo aad u mahadsan tahay kaasi waxa waa Cabdi Axmed oo nala socodsiinayay kiiska ku saabsan oo isku haystaan madaxda ugu sarreeyay dalka doorashooyinka maxkamadda sare dalka ee ka socda mahadsan tahay